kulanti waxaan ugu wanaagsan akhyaarta aanu sida tooska ah wada uga wada xiliino waa mar kale iyo shabakada caalamiga ah ee Marsan News oo idinla ku soo dhawaada qorma aanu diiradda ku saarayna qabyaaladda iyo waxyeeladeeda. qabyaaladdu waa aafa qaran oo ragaadisa ummad kasta qayrkeedna ka reebta waana dabinada cadaawaha mar walbana waa mid la dhararan oo jaalale ah jahliga waxaana lagaga badbaadi karaa oo kaliyaata waa tiyo laga dheeraado ku amal falkeeda. qabyaaladdu waa furaha qoqobka iyo kala jabka bulshada markasta oo ay qabyaaladu badatana waxa badanaya isna caybka kala jabka faanka iyo qof jeclaysiga aad qabyaalada ku jeclaysanaysid. haddaba si ayna taasi u dhicin waxa loo baahan yahay in aad ka dheeraato wax kasta oo sahli kara ku dhaqanka qabyaalada oo ah iyadu aafa ragaadisa ummad kasta. qabyaalada iyo dhibaatooyinkeeda qabyaaladu waxa ay baabisaa horumarka ummadda iyo wada noolaanshaha waxaana ay asiibtaa oo ay si sahlan u dhaawacda xasiloonida iyo deganaanshaha iyo welibana nabadgelyada. nabaddu waa shayga suurtageliya jiritaanka nolol badhaadha leh oo horseeda horumar iyo taabagal dhaqaale. sida oo kale waxa ay keentaa qabyaaladu ka fogaanshaha alle iyo inkiridda diinta suuban ee islaamka iyo welibana kala saaridda ama kala qoqobka bulshada. waxa kale oo isna ka qayb ah kala shakiga oo keena tafaraaruq sahli kara isku dhaca dadka walaalaha ah isla markaana keena galdaloolooyin uu cadowgu ka faa'iidaysto. waxa kale oo aan la masuugi karin in ay guud ahaanba qabyaaladu kala sarrayn aan meelnaba sal ku haynin ay ummadda ku abuurto. dhanka kale haddii aynu eegnana qabyaaladu waxa ay keentaa qarandumis iyo qiimo beel waxaana ay lidi ku tahay qarannimada iyo wax wada qabsiga bulshada. waxa kale oo ay soo saartaa qof aan u qalmin hogaamin ummadeed waxaana astaan u ah aan nidhaahne dulmiga xaqdarrada colaadaha iyo kala daadsanaanta bulshada iyo weliba ciribtirka aqoonta iyo aqoonyahanka. arrimahaasi oo dhanba waa kuwo ku taxan ama astaan u ah caana ku ah qabyaalada iyo ku camalfalkeeda waana dhibaatooyinka ay ummadda baddo. intaasi ayaynu kaga gudbi doonaa tan iyo kulanti dambe oo xiisalo waa cabdirasaaq oo idin leh nabaday. Oh,